وعندي كم هذا بعيد يسوع وينك بلغات كعقل قاضي هنا درس غير إنسان وأوجه كرزورنا وقواعدنا درس إنسان هذا على أدي إلى المو سيد عقل حجر الآن أيام أوجش كين دونا مجالات مقدسو أنت كراكيبا وحربها برشة الرجال مقدسو إن أي إنجلش غيان وحيابها أمره إن أنتقبت مجالات المقدسو وحيابها إن قطع الرواعي كاملة اسبتالة بابليك اسبتالة الدولة وحي شقية ورسوة رسيه وحي عن شقية أما سيقول لي كأن عن بصر وحنا كم الله بدونا عديان لإدمو اسبتالك لا سليتي أما حرية اسبتال كاس أنا ما أقانو سبب توصل سيرود سيئة وبربر سيئة لكن أربع سياسي بكون جبتاتو كاسان قبا وحربا بركا تو كاسين وقبعو عقبضو أن لقلين اسبتال كاس دد ونكسن وأصحابه أيام بلغات كاس بحيين إلى العقد بحنا أن اسبتال الورسة واسبتال أدوي اسبتال كاس مسؤولين هالكام بدل واحد كعسر إلى بالسؤال كار وقدر قرأ كفيريا الجدار الكلام لنا عربة يستاجر وعبود جرادات وارم أي هذا كجرا قاتل متطوعين وإخوهايا أو رجع ورجع وحوالن بكجرا وحكلوا جوجا عرور الدرر أو نفقدر رئيسه أو قول القضية هذه كجرا لكن اسبتال كان لقولنا ليه ما يصير مركز اسمه قال كيس واسبتال هذا وين وعربا إتكستا أو اسبتال كاس كنت إلى تنجارة وقبضت إلى كوان تودو أي أوجد تنسيق تنتبود أيامه هذه أي تاي هوري تنجارة وقفشري شيء أما هذا الدماغ سلسلة يعني قصرية أو كقصرية بالشدة قبل كبنادم هذه هذا الموقع مرة وين تجح تيجي دورنا وأنا بدي سايا اسبتال إن شاء الله تعالى وحربنا وكله لما ودوي كبربرسن أو عن اثنين مجال المقدس أنا دسنار أيضا وحربنا روابك وحي فريسيان بيو لاميدا يو ميلا عن مناسبة هنا المجال كمدا ميلا عز بيو فريستان إلا نظيف أي برو هذا لاميدا أي نظيف هذا بيانا مارين وهلو أو سوي كما بلعب وهلو كسر مجال التاسع معنا كسر سدك دكتور وهي المال أو بيتوجه أو حتى وراء أو مجال الجهاد فيها مال ماس وحرمنا إذا كوينا قال إنه بدلوا مال أو واحد يقول عليه يدر أو مال يقول فيها إلى يوصل وعربا مجال مقدسو أو أبناء أو
waddo burbursan lahayn oo dhismo burbursan lahayn in aan gaarno oo aan halkaas aan aadaan lahadaan waxaan rabaa dhammaan waxyaabaha aan sheegayo halkaa kuma soo koobi karo laakiin intaasaa bilowha barakacyaasha inaan maarayna rabnaa oo ayadana maarayn aan u helno waxaan rabnaa dhammaan hawlahaas oo ay kow ka tahay amniga maxaa yeele waxaasu ma qabsoomi karan amni la-aan waad ogtii waxaan rabnaa inaad waxaasoo dhan garab lagu siisina sida abwaabku u sheegay waxaan rabnaa inaan la dagaalano dadka ama canshuurta aan bixinayn ama sida wax loo isticmaalo inaan la dagaalano canshuurta marka haddii dadka muqdisho ku nool la yidhaahdo ha loo qeybto lacag ma la gaari karnaa ma ku filan tahay waxaan rabnaa waxay wada leeyihiin dadku inaan canshuurta aan ku qabanaa sidaa darteed qof kasta oo taageero dhaqaale la weydiisan lahaa inuu danta guud uga tanasulo si aan ugu dhisno waddooyinka iyo meelaha muhimka oo dadka ka dhexeeya isbitaalada iyo waddooyinka ay kamid yihiin dan kasta oo gaar ah waxaan rabaa in looga tanasulo danta guud oo naga dhexaysa oo ma ahan danta guud oo sheegayna meel xamar ka baxsan maaha xamar waa beledkiini marka in xamar laydin qurxiyo oo nolol fiican loo sameeyo yani nolosha asaasiga waxyaabaa laga maarmaanka sidaasaa haddii rabbeedno aan rabnaa waxaan sidaa fariin ayaan idinkaga wadaa madaxweynaha ra-iisul wasaare waa dhab fariintaas meel fagaara oo meeliyo jooga ka sheegaya fariintaas sidaa waxay tahay dadka muqdisho aragtidooda urursan noo soo gudbi wax ay ka rabaan dowladda si aan ugu qabanay haddii la yidhaahdo aragti rabitaanada shaksiga ah ayagaa iska hor imaanaya saad ogtihiin marka waxaa laga hadlaa ma ahan aragtiyada shaksiga ma aha aragtiyada waa aragtida guud ee dadka ay rabaan marka waxaan ku talin lahaa marka hadda waa taladeedii waaye duubabka ay u horeeyaan kuwa hadda fadhiya ee dadka muqdisho degan ay leeyihiin dhammaan reer muqdisho inay talooyinkooda ay ku ururiyaan baahidooda ay ku ururiyaan ku aadan waxa ay dowladda ka rabaan madaxda dowladda ballanqaadkaasa idinkaga wadaa fariintaas gaarsiiya ilaah marka fariintaas ma iga guddoonteen waa gaarsiin doonaa fariintiina waxaad iisoo qortiin oo loo soo dhiibo duubabka loo soo dhiibo taas macnaheeda waxa waaye dilayna siyaasiyinta ha loo soo dhiibo siyaasiyinta kala baahiyana kala aragtiya noqon saad ogtiin marka in duubabka loo soo dhiibo anay ila noqotay laakiin fariintaas gaarsi adigu noo keenay anigii marka waxaan rabaa aan geey cid iisoo gudbisa anigaan raba laan dadka dhan iigu soo gudbi kara ma arki kara doolka dhamaantiisa marka waxaan rabaa inaan mar kale idinkaga mahad celiyo soo dhaweynta iyo marxabayska waxaan aniguna rabaa sidaas oo kale madaxda haddaan anigu ku imid rabitaankiina oo inaan shaqeeyo taageersan tihiin madaxda suuro gelisay inaan halka uga mahad celiyana